dhaartu waxay baabiinaysaa barakada, waxay socodsiinaysaa badeecadday socodsiinaysaa. wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam labada wax kala iibsanaya hadday been isu sheegaan, ceebaha ay qariyaan, muxiqat barakatu baycihima, waxay kala iibsanayaan barakada laga qaadaa. waxaa ka mid ah raadka ka dhalanaya xaaraanta la cunayo ghadabullah, ilaahay inuu kuu cadhoonayo. wuxuuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka ku dhaarta dhaar gole inta la soo joojiyey qof muslima xoolihiisa ku dhaaranaya, laqiya allaha wahuwa calayhi ghadbaan, ilaahay wuxuu la kulmayaa ilaahay oo u cadhooday. waxaa ka mid a cadaabulqabriga in lagu cadaabayo, waxaa ka mid a qalbigiisu inuu ingegayo, waana cuquubo ka weyni ma jirta qalbigaagu inuu ingego oo uu qallallo. waxaa ka mid a ciqaabta ka dhalanaysa xirmaanu ladati taaca, cibaadada dhadhankeeda iyo macaankeeda in lagu seejiyo. waxaa ka mid a aljur'atu cala almacaasi waalmuubiqaat. waxaan kusoo gabagabaynaya ballantu badh nus saac bay ahayd, 5 daqiiqa ka dhiman. 5 daqiiqaan insha allah kusoo koobayaa. makaasibta xaaraanta ah waxaa ka mid ah ee hadda laga shaqaysanayo, aadkana u faafay, aadka la ysu weydiinayo, waxaa loo yaqaano altaswiiq alshabaki aw alharami, oo hadda su-aasheeduna badatay, mujtamaceennana aada ugu faafsan. taswiiqu shabaki waa maxay? waa in shirkadii imanayso, badeecad bay keenaysaa, qaarna badeecadba ma keenayaan. waxaa loo odhanayaa qof walba qofka aad keento commission baa lagugu siinaya. kullamaa dad ay kaa farcamaanna commission baad ku leedahay. waad imanaysaa, ama alaab baad iibsan, ama lacag kaasha baad bixin, labaduba waa jiraan. dadka aad keentana lacag baad ku leedahay. 2 qof haddaad keento, labadaa mid waliba labuu keenaya, labadii waxay noqonayaan 4, 4tii 8, 8dii 16, 16kii 32, ilaa boqolaal iyo kumanaan ay kuu gaadhaan. ummaddaasina mid waliba wuxuu ku foogan yahay inuu dad keeno si wax u faa'iido. kullamaa aad sii dallacdo, faa'iidadaadu waa badanaysa. jabhadda hoose cusubee yaacaysaa, iyagu waxay doonayaan hadda inay dad helaan, laakiin kuwii hore ee qudamada ahaa ayaa lacagta badankeedu u dhacaysaa. shirkadduna iyadu mar walba waxbay faa'iidaysaa. ummaddiina waa la howlgelinaya. 50 sano ka hor bay Maraykan ka bilaabatay, Yurub bay u soo gudubtay, Asia ayay soo gaadhay, Afrika ay hadda maraysaa. ta bilaa badeecadda ah Maraykan iyo Yurub badankeeda waa laga xaaraantinimeeyey oo nidaam ahaan ayay u diideen. ta kale badeecadda ah baa weli hadda aad u shaqaynaysa. innaga labaduba waa ina soo gaadheen. ta hadda weli aadka u shaqaynaysa xoogga badani waa ta kaashka la bixinayo, iyadoo la leeyahay hagbad casriya baanu ku gelaynaa. qadiyadda waa la isla fahmaya. bay ku cusubta mise waa maqasheen? waxaan filayaa qaar galay inay joogaan baaba laga yaaba, masalada aan cilmi u lahayn ama ka toobad keenay, waayo aad baa hadalhaynteeda u badan tahay. xukunkeeda haddaynu soo koobno, dhowr qodob bay culimmadu u xaaraantinimeeyeen. kow waxaa ka ah alqimaar, waxaa ku jira biimi. qofku $25 buu ku gelayaa si uu dad badan oo commission lagu siiyo uu helo. $25 ama waa shul ama waa shil. waxaa dhici karta $1,000 iyo $2,000 iyo $3,000 iyo $5,000 inuu ku helo. waxaa dhici karta dadkii hadduu waayo inuu zero soo istaago. qimaarkuna waa kaas. 2 waxaa ku sugan algharar, jahaala ku sugan. shirkadda waxeedu waa u cadiya, laakiin dadkan badan ee laga ganacsanaya waxa ay gelayaan madmadow baa ku jira. nabiguna waa diiday calayhi salaatu wasalaam wixii jahaala ah. waxaa ku jira aklu amwaali nnaasi bilbaatil. maanta haddaad adigu magaaladan burco aad keento oo dad aad qaybiso, ummaddaasaa kuu shaqaynaya adoo jiifa. dhididkooda iyo tacabkooda ayaad qaadanaysaa adoo aan waxba shaqaysanayn oo aan waxba qabanayn.
ilaahayna wuxuu uhi laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaatil sababaha loo xaaraantinimeeye waxaa ka mida algubn dadka in la dagayo in la sirayo badeecad qiimaheedu yahay $5 baa la odhanayaa waa $25 ujeeddaduna ma aha badeecadda qofku inuu iibsado ujeeddadiisu waa inuu galo shirkadda noocaasa heshiiska suuqaynta uu la galo si uu dad u keeno fasaxna uu ugu helo inuu dad waxa weeye commission uu ka helo uu soo geliyo qodobada iyo qodobo kale oo aan la soo koobayn bay xaaraan ku noqotay culimada islaamka ee xilligan jooga markay ka hadlayeen fataawaha laba loo qaybiyaa midi waa jamaaci culimo waaweyn baa intay isu yimaadaan bay masaladii baadhaan way ka doodaan go'aan bay ka soo saaraan marna shiikh baa la weydiinayaa wixii ilaahay uga furo ku dhufanaya waxaana xoog badan oo qiimo badan fatwada jamaaciga loo dhan yahay culimada waaweyn ee welibana fankan ku takhasusay ma soo koobayo waxaan tilmaamayaa in golayaasha waaweyn ee cilmi baadhista iyo fiqiga culimada islaamku ay ku bahoobeen go'aanada ay ka soo saareen ma sheegayo laakiin magacyadoodaan sheegayaa go'aankuna waxa uu yahay iib kasta oo ku salaysan dad in la suuq geynayo oo badeecaddu aanay qiimo lahayn la danaynayo komishinkaa dadka la soo gelinaya laga helayo wixii noocaasan qaabkii loo dhigaaba inay xaaraan tahay ayay culimmadaasi fatwoodeen waxaa ka mid ah allajna addaa'ima liliftaa waalbuxuuth alcilmiya oo sacuudiga ah oo masaladaas hay-ati kibaari alculamaa ay u saareen baxhi iyo cilmi baadhis iyo go'aanana ay ka soo saareen ay waxa weeye ku xaaraantinimaynayaan ibnu baaz ibnu cuthaymiin iyo culimmadii waaweynaa ee casrigan ee la yaqaanay ay ka mid yihiin waxaa ka mid ah golayaashaas majmacu alfiqhi bisuudaan oo kulanka culimmada fiqiga suudaan isaguna cilmi baadhis buu sameeyey doodo iyo niqaash dabadeed wuxuu gaadhay inay xaaraan tahay ganacsiyada noocaasa ee qaabka suuqgeynta qaabka noocaasa loo samaynayo waxaa ka mid ah markazu alalbani lilabxaath almanhajiya waadaraasaat alcilmiya oo urdun ku yaalla isaguna go'aan buu ka soo saaray cilmi baadhis uu sameeyey kadib waxaa iyaguna go'aan ka soo saaray alhay-at alculya lilriqaabati alsharciya cala almu'asasaati almaaliya oo suudaan ku yaalla isaguna go'aan xaaraantinimayn ayuu waxa weeye ka soo saaray iyo golayaal kale marka masalada noocaasa liyuballigh ashaahidu alghaa'ib ha la isgaadhsiiyo ganacsiga laga ganacsanaya waa xaaraan dakhliga kaa soo gelaya waa xaaraan inaad ka qayb qaadataa waa xaaraan inaad suuq geyso ama dadka ugu yeedhaa waa xaaraan waxa weeye aklu amwaali innaasi bilbaatil bay noqonaysaa wallahu aclam وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم